abulxasan innadawi baan u jeedaa raxmatullaahi calayh sheekhii hindiga ayaa dhintay baa wuxuu leeyahay qarnigii 16aad wixii ka dambeeyey muslimiintu su-aalihii cilmiga ahaa iyo sayniska ku saabnaa waa ka seexdeen su-aalaha metafisikiska ka warrama ilaahiyaadka iyo waxa ka warrama ayay ku mashquuleen saa daraaddeed may ka soo bixin buu leeyahay maskaxihii waaweynaaye lagu yaqaanay waa sababta keentay buu leeyahay cilmiga iyagu soo saareen intay ilaabeen inay hidiya dhaqankii ku noqdaan iyo baadiyaha wixii lagu hayay taasi buu leeyahay waa waxa ka dhigay inay addoommo u noqdaan nimanka reer galbeed buu tilmaamaya marka adduunka la xisaabinayo aqoontu qiimahay ku leedahay maadaama aynu sheegnay iyo horumarka meesha ay ka taagan tahay مثلا الأمم المتحدة UN qaybteeda UNDP la yiraahdo taqriir ay soo saareen waxa ay ku tilmaamayaan dunida masiixiga ah kristanka sheegata marka la isku daro Yurubteeda iyo kuweeda kaleba boqolkiiba 90 baa wax qora that means illiteracy-goodu dadka aan waxna qorin waxna akhrinin waa boqolkiiba 10 si kale markaan u tilmaamno waxay leeyihiin 15 wadan oo dunida kristanka ka midi qof aan wax qorin ma joogo dadkoo dhan waxbay qori karaan waxna waa akhri karaan dunida muslimka si haddaynu eegno isku celcelintooda boqolkiiba 40 baa wax qori karta qiyaas caalam islaami dunida masiixiga marka la eego bay yiraahdaan dadkooda mutacalimiinta boqolkiiba 98 baa dhamaystay dugsi hoose dunida muslimiinta ana boqolkiiba 40 ka aynu sheegnay konton ka mid ah ayaa dugsi hoose ka baxay that means 50 ka mid ah dugsi hoosena kama bixin waxay yiraahdaan dunida reer galbeedka ama masiixiga marka la isku daro dadkooda mutacalimiinta boqolkiiba 40 baa jaamacad tagay muslimiintana boqolkiiba 2 jaamacad tagay boqolkiiba 2 markii horeba boqolkiiba 40 bay waxbarashadoodu ahayd 40kiiba boqolkiiba 2 jaamacad ka tagtay qolana marka hore waxbarashadooda boqolkiiba 90 ahayd 90kiiba haddana boqolkiiba 40 ay heer jaamacadeed gaarsiisay wadannada inaga inoo aqoon-yahanka Masar baa ka mid ah boqolkiiba 30 baan waxna akhrinin waxna qorin 29.6 bay yiraahdaan haddaynu si kale u tilmaamno boqolkiiba 30 baan gacantoodu musxafka taaban bay yiraahdaan ila garan maaye waxay tilmaamaan ma faqri ba maya faqri maaha ee aqoontan qiimo ku lahayn agteena kuba wadannada faqriga bay ka mid tahay da'yarteeda u dhaxaysa 15 jir ilaa 24 jir qof aan wax qorini kuma jiro waa kuuba waa wadan faqiir haddii faqri lagu xisaabtamayo dadkeeda waaweynna boqolkiiba 0.2 ayaan wax qorin 0.2 waa imisa waa mid 10 meelood loo qaybiyay laba ahaan boqolkiiba 98.8 ayaa wax qora dadkeeda waaweynna waxa la mid ah Brazil Chile maxaa la yiraahdaa Colombia wadannada yaryar caynkaas boqolkiiba 97 ama 98 baa wax qora waxna akhriya dhan kale wax lagu qiimeeyo haddaynu marro caalam islaami oo dhan 600 jaamacadood ba ku yaala bay yiraahdaan bilyan iyo badh ama 2 bilyan oo bini aadam 600 jaamacadood leh wadanka Mareykan oo qurina marka instituteskiisa iyo jaamacadkiisa la isku daro 5,200 weeyaan inta accredited ka inta mu'tamadka ah ee 4 sano qualified ah ayaa 2,618 jaamacadood that means hal wadan ba muslimka oo dhan marka la isku daro 4 jeer ka jaamacado badan muslim oo dhan marka la isku daro bilyankiisa iyo dheeraadkiisa si kale haddaan u tilmaamo 750 wadan baa muslimku majority yahay 750 ka wadan ee muslimka ay mesela jaayisada caalamiga ee Nobel Prize ka la yiraahdo 3 goor bay weligood qaateen 3 goor ayay weligood qaateen
saddexdaasina xataa tira maaha saddexda qaatay saddexduba markay jaamacaadka levelka hoose caalamulislaami ku barteen bay ka tageen laba iyagoo maraykan joogay qaateen jaamacaadka maraykan bay baxtiga ku sameeyeen midna isagoo talyaaniga iyo ingiriiska joogu baxtiga ku sameeyey oo ku qaatay laba chemistry ku qaadatay waa nin turkiya iyo nin masriya midina waa bagastani nasiib darrada ka bagastaanigii weliba waa qaadiyaan isagu marka waxaynu tirsanaynoo dhami oo muslim nobel prize qaatoo dhan haddii la isku daro waa saddex nin oo gaalaga la joogay ee jaamacaadkii islaamiga ahaa ee caalamulislaamiga wixii ku yaallay waxba may soo saarin that means 0.05 nobel prize dunida la bixiyay intaasaynu ka qaadanay gaal mulxid oo la yidhaahdo Neil deGrasse Tyson waa nin madow oo maraykan ah oo aqoon-yahanada sayniska laga dambeeya ka mid ah laana mulxid aan ilaahay rumaysanayn alla adriya ayaa wuxuu leeyahay 15 milyan oo yuhuudda dunida joogto dhammi buu waa 15 milyan marka la eego buu yidhi taariikhda 1902 ilaa inta la soo gaadhayo 2010 intii u dhaxaysay 150 Nobel Prize bay qaateen 15 milyan ee dunida joogay yuhuudda waxay qaateen 150 Nobel Prize oo science ah ka hadli maayo kuwa khuraafada ee maxaa la yidhaahdaa caalamulislaam la qaatay inagu Nobel Prize keenu qaadana ma taqaanay waa saadaad baa qaatay yuhuuddu la heshiiyey carafaad baa qaatay yuhuuddu la heshiiyey hablaha xuquuqda dumarka u dagaalama shiriin inantii eeraanada xuquuqda u dagaalanta biiskay qaadatay nabaday qaadatay inantan yamaniyada xuquuqda u dagaalanta tawakal baa qaadatay yartii caruurta ahayd ee 17 jirka ahayd ee bagastaanta ahayd malaala baa qaadatay inagu waa kuwa layna siiyaa hablaha xuquuqda u dagaalama Nobel Prize ka qaata Peace Nobel Prize nimanka yuhuudda la heshiiya adabka labay muslimiintu qaateen labaduna midi waa Najib Mahfoud awlaadu xaaratina buu ku qaatay ma akhrideen wadin la'aan wuxuu qoray diin la'aanta lagu siiyey mid ka kalena waa Turki isna diin la'aan baa lagu siiyey wuxuu yiraahdaa cultural muslim baan ahay kuwa wax aaminsan meeyay dhaqankaygu baa islaamka ka soo jeeda adabka kuwa laynoo siiyeyna waa kuwa Nobel Prize ka qaateen yahuudo 15 milyanihina marka la eego cilmiga dhakhtarnimada iyo biology-ga wada socda 196 Nobel Prize baa dunida la bixiyay 49 bay yuhuudi qaadatay chemistry marka la eego 158 baa la bixiyay Nobel Prize 28 bay yuhuudi qaadatay physics marka la eego 158 baa la bixiyay 45 bay yuhuudi qaadatay dhaqaale marka la eego 66 Nobel Prize baa dunida la bixiyay taariikhda aynu sheegnay ilaa 2010 laga gaadhayo 28 bay qaateen that means wixii Nobel la bixiyay science ku saabsanaa 15 milyan ee yuhuudi boqolkiiba 25 bay qaateen Gillespie oday la yiraahdo Maraykan ani gaboobay hadda dhowr isaga jira laakiin waa culimada looga dambeeyo taariikh al-ulum science history ee wuxuu leeyahay markaan eega buu yidhi medieval period-ka waqtigii loo yaqaanay al-usur al-wusta quruntii dhexe dunida 130 caalim baa jiro magacooda la xusi kara buu leeyahay oo aqoon-yahan iyo technology scientist iyo technology ahaan jiray 120 ka mid ah caalamka muslimka ka yimaadeen buu yidhi Yurubna 4 bay ku lahayd waa 130 nin ee dunida aqoonteeda hogaaminayay kama warramaya hadda tii sharciga ahayd ma aha waxaan ka warramayaa tii kale 130 nin ee hogaaminayay dunida waqtigaasi medieval period-kii oo dhan ayuu gaalkan Maraykan wuxuu leeyahay 120 baa caalamul islaami ka yimi Yurub oo dhan 4 baa ka yimi mulxidkii Neil sahaba wuxuu isweydiinayaa war siday u dhacday buu leeyahay bilyan iyo dheeraad muslim bilyan iyo bar dadku dhadhow ama 1.3 1.5 waxay doonaan sheegaan intaasoo muslima oo aabayaasho dunida hogaaminayeen oo cilmi ku hogaaminayeen maanta inay wax la'aan dhacda xagay ka timi wuu isweydiinaya waa nin gaaleed
markaasuu wuxuu leeyahay 15 milyanna inay intaa helaan bilyan iyo badh muslimana in la waayo iyagoo shalaytana dunida iyagu hogaaminayay waliba su-aasha wuxuu ku darayaa uu leeyahay dadkii aan taariikh cilmiyeed lahayn iyaga kama hadlaya buu leeyahay kuwani taariikh cilmiyeed bay lahaayeen buu leeyahay waa awowiyadood dadkii aqoonta tan hogaaminayay xaggay ka baxday buu leeyahay isagu wuu isu jawaabayaa inkastoo laga yaabo jawaabtiisa inaynan wada raacin waxa jawaabihiisa ka mid ah wuxuu leeyahay labada kaljar baa isbedelay labada dhaqan baa isbedelay qolana cilmigay qiimaysay qolana cilmigay qiimo la'aan ka dhigtay waayo qolana cilmiga uu qiimaysay qolana cilmigu qiimo la'aan u noqday tusaale ahaan caalam islaam oo dhan waxaynu nidhi 600 jaamacadood baa ku yaala dunida carbeed bay yidhahdaan jaamacaadka ku yaala boqolkiiba 75 rubcu qarnigii ugu dambeeyey qarniga 20aad baa la dhisay waxaynu waxbaranaaba haddaynu bilownahay waa boqolkiiba 75 waxa jaamacad carabi leedahay iyagoo jaamacaadkii dunida ugu horreeyey fas baa ugu horraysa azhar baa ku xigta zaytuuna ku xigtaan u malaynaya kollay labada jaamacadood ugu horreeya tafas baa ugu horraysa azhar baana laba ah jaamacatu alqarawiyin iyo jaamacatu azhar iyadoo jaamacaadba dunida haddii la sheego wixii ugu horreeyey hadda dhisana iyagu lahaayeen wixii baaba'e horena iyagu lahaayeen waa qurtaba waa baqdaad waa kan magaalooyinkooda ahayd waa samarqanda maantase waddankan yaryare yuhuuda falastiinta boobtay waddankooda yar 25 jaamacadood higher education baa ku